isuduwaha wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee gobolka Saaxil Maxamed Axmed Faraare oo maanta la hadlayay saxaafadda dawladda ayaa ka waramay howlo iyo dhaqaaqyo cusub oo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diintu ay ka wado xarunta gobolka Saaxil Berbera kuwaasi oo ay ka mid yihiin dhismayaasha deerar lagu wareejinayo xabaalaha kala duwan ee gobolka Saaxil ama xarunta gobolka Berbera ku hareeraysan iyo culimo kala duwan oo muxaadarooyin diini wado gobolka ku soo qulqulaya isla markaasina ka kala imanaya gobolada iyo degmooyinka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaasi oo dadka u soo jeediyay inay weeleeyaan wiciga diiga ah ay u wadaan culimadaas isla markaasina ay doorasaan marka ugu horeysa waxaan guud ahaan culimada gobolka Saaxil ku baraarujinayaa oo aan u soo jeedinayaa بريتوت جمعة إن شاء الله تعالى وتاريخ هاي هجرة هاي 22 بالشناد تميلاد يقولون هاي تدبير تبنكا إن شاء الله تعالى خطبتها خدران ما دام أي خطبة جمعوه تهاي هلكي ويجا أي مدة مسلم كهاي وحشري أما هو وحي أحوالك وكلا قادنين سيد الله سعوتان أما عدي يوين بقى نقيسين يو قصاص تيشال تكرر علي قبل كساحل دقمة منديرة ولو قصاصي لحنن وقعن كديقليا لها أرنتها صورنا هانتي أرن حق الإسلام كدحديسة أرن أيتهاي وحويا إلهي سبحانه وتعالى كيدي ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا آياتك إلهي سبحانه وتعالى وحليه هي ولكم في القصاص الحياة يا أولي الألباب إلهي سبحانه وتعالى وحليه هي عدة للدلو يدل من اللي قدلو عدة دي الشيء الكيدي عدة للدليه الكيدي حوشان سيبوري إن قصاصتان إن مقاتان يعني سامحان تدكاس مركي أي حكومة الشرعي وحي لها تكفل يسوي محكمة دي سومرين وحوي دتك أهل كهانا وحيكوات كاستنين لو قصاصه ساسا لو قصاصي أنت أكدب كوسارة وقفان قبل كساحل وسارة رهان تي شقديدو إن سيدي رسمي جهيد عادي جهيد إمان الله هيد بيوسعتها إن واحد بعته وإن مشران runtii wuxuu baan yar baraarujin lahaa kulli xilliyada qaboobaha ama iidaha ama jumcayaasha ama khamiisaha in gobolka Saaxil nagu badan dalxiisayaasha kulli dhalinyarada aan loo diidi maayo gobolkooda laakiin waxaan doonayaa inay dhaqanka iyo anshaxa suuban islaamka ilaaliyaan waxaan u dhaweyd gacanta ku haynay oo iyagana yar taabanaya wiigan ama labadan wiig wax magaalada ka socday muxaadaraad ama nadwo cilmiyooyin ay culimada kala duwan ee dalku waxa weeye ilaa Allah subhanahu wa ta'ala gibilay ilaa hargeysa burcan nooga yimaadeen oo masaajida fara badan ka socda culimada Ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu banay Ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro arinka khayriga ah ay u soo saciyeen dadkana waxaan leenahay tee waxa weeye ka qayb qaata in dhageysiga iyo waxa weeye ku qaadashada iyo in la weeleeyo oo la gurubsado cilmiga culimada laga gurubsado waxa kale jirta hawl khayri ah oo aan bariyahan gacanta ku haynay oo aan ugu mahadnaqayno qaybo kamid ah ganacsatada iyo maamulka dawladda hoose waxa reer Berberinta badan og yihiin in dhamaan magaaladii Berbera gudaheeda xabaalihii ku jiray la deeray xabaalaha meelo badan baa waxa weeyaan daldalooshamay ama waxa weey gabadha ku dhacdo ama waxa weey si ka sabaha loo jijibiyo dad dhalinyaro ah oo la oran karo waanay fahansaneen حقا حبالو ليين باش تشبيي marka hawsha xabaalahaas aan dib u dhis ku sameeyay imka mudabila oo meelid duldulla awdanay meel hore looga tagay dhisaynay hawsha maayarkan oo aad uga mahadnaqaynaa Cabdishakuur Maxamed Xasan oo wax weeyay kharashka qayb ka mid ah bixiya ganacsato ka midna ay bixiyaan sibidhada oo kale iyo jaajuurka oo kale wadiga culimada ayaa inta badan waxa uu ku soo ururayay in Ilaahay laga yaabo nabigana lagu saliyo alayhi salatu wa salaam Cabdisaan Xariish Qosmaan TV qaranka Somaliland Berbera